السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأتجاجيسن تيمية ما أنت صورنا ذين. إلهي سبحانه وتعالى شيخنا الشيخ سعيد هبركيو يعلم ذين ضمان توضأ وحا أي جهدي يددال وجيران وأي كفكرايان مروا البو أدون كان آخرة ذيننا إلهي سبحانه وتعالى كأقبلوا ميزان كوذا حسنات كآخرنا هو سارو دا كدب ولا ليال وحي كلمة والدنيا آخرة ونورون شيخا كهالي جزاه الله خيرا أنيو إن شاء الله تعالى قدبك أقدم بيا والشيخ هذا الكيس كسو قوة قبيعي وأركي إني تهي waxyaabaha ugu muhiimsan ee xaaladda hadda aan ku jirno ee burburka ah ee nacaybka ah ee horumar la'aanta ah aan uga baxayno midaas ayaan isdul taagayaa insha Allah ta'ala bisha aan ku jirno waa bisha Shacbaan nabiga kaleey salaatu wassalaam xadiis ayaa ka sugan ووجه الله أرنتاس شيخ أوت المامي حديثك إلى دور صحابي أيا لجوريا سديت جارايا أبو بكر وكجرو أبو هريرة عائشة يرك الله صحابة كمدة علماء الإسلام كويس وخلاف سيهين حديث كاس ما ضعيفة مسوى صحيح لكن علماء بدن ومحققين تكمدة أي سوية حديث كاسا وكمد يهي الإمام أحمد والأوزاعي وابن تيمية وابن رجب والشيخ الألباني رحمة الله عليهم نبي وحلي عليه الصلاة والسلام يطلع الله ليلة النصف من شعبان إلى خلقه أو إلى عباده فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن bishaan ku jirno ee Shacbaan habeenka ay kala barmayso ee 15keeda ah nabiga wuxuu yiri kaleey salaatu wassalaam ilaahay adoomadiisa ayuu soo daalacanayaa riwaayad kale waxay ahayd ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu soo degayaa oo wuxuu imaanayaa samadan dhow ee na soo xigta ilaahayna subhanahu wa ta'ala si asaga u qalanta weynidiisa iyo cadamadiisa u qalanta ayuu u soo degaa qofka muslimka ah waxa laga rabaa inuu sugo ilaahay inuu soo degaayo ama kayfiyada ilaahay umba og subhanahu wa ta'ala marka ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu soo dego adoomadiisa oo dhan ayuu daalacanayaa ayuu yiri nabiga kaleey salaatu wassalaam marka ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa darteed nabiga wuxuu yiri kaleey salaatu wassalaam adoomada dhan ayuu u dambi dhaafayaa laba kooxood ama laba nooc oo kamid ah khalqiga ilaahay baan loo dambi dhaafaynin waa nin mushrik ah qof mushrik ah oo ilaahay subhanahu wa ta'ala cibaadadiisa qof aan asaga ahayn waxa ugu daray iyo mushaahin ayuu yiri nabiga kaleey salaatu wassalaam qof xanuun qalbigiisa uu ku jiro وركتالو أي قلبي سكوجشتو نعيب يحمان قلبي سأوها يقف كلا أو مسلم ولا الكيسة لبضع قف إلهي سبحانه وتعالى دم بجودة مضافة شيخنا وحكاه الله إلهي كرر لنقده هدي أن دونينو إن أنهر مرجرنو هدي أن دونينو حالة أن كجرنو يدي بدعة بربركة أمن درذة waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan uga bixi karno waxa weeyaan in aan iscafino wixii horay u dhacay oo dulmi ah oo ku saabsan nafsada xoolaha iyo cirdiga in aan isu cafino oo aan uurka wax isugu qabanin xadiiskaas nabiga uu sheegayna kaleey salaatu wassalaam sidaas ayuu sheegayaa walaalayaal maxaa ka xun marka qof laga yaabo wax aad u yar oo aan qiimi lahayn adduunyada dhan aan qiimi lahayn nabiga sidoo sheegay kaleey salaatu wassalaam adduunyadaas aan qiimiga lahayn wax yar oo kamid ah inuu qofku مثلا qof walaalkiisa ah
oo islaamnimada ka sokow ay raxim yihiin oo ay isku dhiig yihiin uu u caroodo oo uu xanaaqo oo uu laga yaabo inuu ka aamuso sanado iyo bilooyin aad u fara badan qofka asaga ah intaan aakhiro la gaarinba shakhsiyadiisu ma ahan shakhsiyad wanaagsan ma aha waa qof daciif ah oo shakhsiyadiisana ay aad u liidato li'annahu waxaa weyn oo aad u weyn oo laga rabo qofka muslimka ahna in qalbigiisa ay ku weynaato aakhiro iyo waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa yaalla oo raalli ahaansho ah oo janno ah oo naciim ah walaalayaal marka qofka muslimka ah khaasatan soomaalida waxaa laga rabaa thaqaafadaas ayada ah thaqaafada iscafiska dadku inay isu cafiyaan inay isu dulqaataan qofkii dhibaato kuu geysta in la iska cafiyo oo looga tago thaqaafada ayada ah inaan ku baraarugsanaano oo aan baranno walow aysan markii hore culture-keenna aysan ku jirin culture-keenna kuma jirto soomaali haddaan nahay qofka in la cafiyo min asiqar cunuga asagoo yar ayaa waxaa lagu tarbiyeynayaa sida uu u aargoosan lahaa waxaa leeyahay iska dhici soo dhiig ma lihid nacas maa tahay ku dhufo waxaasoo dhan baa lagu soo tarbiyeeyey marka qofka haddii xataa uu isleeyahay diinta inta ay qaado ama wacdiga iyo axaadiista iyo aayadaha la sheegay inta ay qaadaan uu isleeyahay isa soo qabo wixii ayaa ka soo guuxaya maxaad arkaysaa marka qofkii asagoo gacan qaadaya walaalayaal marka arrinta ayada ah waxay halis ku tahay aakhiradeenna ayay halis ku tahay adduunka ka hor li'annahu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay walxadiidu fii muslim maalin kasta oo khamiis ah iyo maalin kasta oo isniin ah acmaasha ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa loo kor qaadaa acmaasha aan samaynayno ee wan wanaagsan oon ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaanayno labadaas maalmood malaa'ig ayaa ka shaqayso oo geynaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ayay geynaysaa acmaashii marka nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu u dembi dhaafayaa qof kasta oo aan ilaahay subxaanahu wa tacaala la shariig yeelin oo tawxiidkiisa uu kaamil yahay oo uusan shirki iyo maxaanku yidhaahdaaye wax xun uusan ku dheehin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala sidii la rabay u caabuday hal qof ayuu ka soo reebay nabiga calayhi salaatu wasalaam labada qof ee isku dhacsan oo isu caraysan oo xumaha isku haya nebiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam labadaas qof ilaahay malaa'igta wuxuu ku dhahayaa andiruu haadayni xataa yastalixaa labadaas is haystaan waxay doonaan ha isku haysteen xoolo ha isku haysteeno qabiil ha isku haysteeno wax walba oo xumaan ah oo adduunka ka mid ah isku haystaan camalkooda ma la fiirinaayo dembigoodana ma la dhaafaayo soo khasaaro inteeda la eg maaha marka walaalayaal waxaa laga yaabaa qofka asaga ah inuu yahay qofka dadkoo dhan kaaga dhow waxaa laga yaabaa waalidkaaga inuu yahay adeerkaaga inuu yahay eedadaada inay tahay ilaa aakhirihi marka walaalayaal arrinta ayada ah khatarteeda ayay leedahay qofka muslimka ahna waa qof caaqil ah oo mar walba ka fikira kana fogaada wax walba oo dhibaateyn kara aakhiradiisa intaan la gaarin adduunka waxaana loo baahan yahay qofka muslimka ah xisaabtiisu iyo fikirkiisa inuu u bato aakhiro dad badanaa markaad la hadashid oo hadday isku dhacaan qof ay isku dhacsan yihiin xoolay isku haystaan maalan waa laga gardaran yahay haddaad tidhaahdo niyahu iska cafi wuxuu ku leeyahay sharafkaygana ma ninkii saas igu sameeyey oo xoolahayga dhacay oo cirdigayga meel ooga dhacay oo qabiilkayga caayay baan haddana aniga ay leedahay u tag oo adiga sasabo oo adiga soo raaligeli ama adiga salaanta ku bilow soo lama mid ma ahan marka inaad sharaftayda ku ciyaarayso maya walaalayaal liannahu adiga markaa saa samaynayso waxa aad saas u samaynayso qofkan ma ahan qabiilkiisana ma ahan dadka uu ka dhashay iyo jaaha uu leeyahay iyo darajada uu joogo ma ahan waxaad u samaynaysaa waa ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiisa wuxuuna nebiga calayhi salaatu wasalaam noo xaqiijiyey weliba uu ku dhaartay calayhi salaatu wasalaam kamaa fii xadiidi abi kabshata alanmaari halaathun uqsimu calayhin وأحدثكم حديثا فاحفظوه أيوه للنبي عليه الصلاة والسلام waxaa ku jira
saddex arrimood oo nabiga ku dhaartay calayhi salaatu wasalaam maa zaada allahu cabdan bicafwin ilaa ciza ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa ka mid ah cafis uu cafiyey waxaan sharaf iyo cize iyo karaamo ahayn wax kale ma ugu daruu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam marka adiga sharafka iyo maqaamka iyo booska iyo darajada aad raadinayso waxay taallaa ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa man kaana yuriidu alciza falilaahi alcizatu jamiica sharaf haddaad doonaysid addoonkaa miskiinka ee daciifka ah oo ku dhiiraday xataa inuu ku dulmiyo agtiisa ma taallo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ayay sharaf taallaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ballan qaaday qofka dadka cafiya inuu ajir aad u weyn uu siinayo ilaahay subxaanahu wa tacaala dembiga lagaa galay dulmiga lagu geystay intuu doono hala ekaado haddii ay kaa tahay dar ilaahay inaad u cafisay dar ilaahay iyo janno adoo raba iyo aakhiro adoo raba haddaad u cafisay ajirkaaga ma dhumaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ayuu yaalaa faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah qofkii cafiya oo wanaajiya waxa asaga iyo walaalkiisa dhexdooda ahaaday oo xumaan ah أجركيسا إلهي سبحانه وتعالى أكتيس أيو أهادي أجركيسا لمدهن ووحاسي وحاس لكن إلهي وحويري أجركيسا أكتيذ أيو أهادي كورا هذا هديل ويرادو قفكاس آذي سكود علين هداد عفسو أبالكاغو ومليون كينو ومليون شيلين أما $1,000,000 لأنه شيخ وحويش العكتين إنه بابا أتهايو ملايين تويود ما وحير $1,000,000 وهذه لغده وحأو لقيا وحأو كوجستين إن يتهاي هذا الأوير هذا أما لقيا بابا هذا الكائن سن حتى كوه لنا سخلدن لجسوا جوري أما وده هاي وسكله كوضع لكن قفك كوسو جوري حمان تربه وسكله ودقي مرك هذه الأوير هذا $1,000,000 أيال وسينايا أنا جا شخصيا هذين كنا وحنا ملينا إلى 200 البريقس ما كوفي كلا يقف كمسلم كأنه أوتجو وأن هبسي وأن صور دويست سوساس معها طيب هذه اللي وده كورة مركة مدحوينها ودنك أيا أبا الكسينا يا يقف كسكدا ويكسي درنته وحن لليه هي أبالك إلهي أيا كسينا يا والله سبحانه وتعالى أن أبورتي ديقسجة غنيجة وحيا خزائنته لن أكتس أيتهي waxa ugu weyn ama waxa ugu yar ee ilaahay subhanahu wa ta'ala ajir ahaan uu ku siinayo qofka walaalka muslimka marka cafiso waa janno wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra wad-dharra wal kadhimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay addoommada muttaqiinta ah waxaan u diyaarinay janno ballaceeda uu yahay cirarka iyo dhulka waa ballaca keliya waxa yaallo ma laga sheekayn karo muttaqiintaasu ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamooyinkooda qaar ka mida tilmaamay waxaa ka mid ah marka walcaafiina cani innaas waa kuwa dadka cafiya intaa keliya ma ahane أجركاغو جنة كليا معهن وحيابا آدو فربضا أبو بكر رضي الله عنه حاكسوا إنه يري ما لنت قيام مركا لتقو إلهي سبحانه وتعالى وحليه هي أدو مديسة والله الله يا وحليه هي ددك إلهي سبحانه وتعالى أكتي سأي وحويا اللان وإلهي سبحانه وتعالى وأبلن قادي أدونك مركا لجوغي إن وحلسيو قوني ومستاقا مركا وحصوب بحايا ددك عفن جري ولذلك نبي إلهي رضوان صلوات الله وسلامه عليهم ذاتك وناكسان أو الصحابة أي كوكيهين معناها أسجأه ويفهمين هذه اللي يراهدنا إلهي سبحانه وتعالى بأجر كسينايا ويروحين أو ويفهم سيهين ويقرنايان قيمة أوليه أبو بكر رضي الله عنه وأكتهين قصة حادثة الإفك عائشة رضي الله عنها منافقين مركي سوق قليين إن أي زنيستي إلهينا سبحانه وتعالى مركدا بآيات آد فربنا سودجي وكشيغا يني بركته وحاصل وشيغا منافقين تكسكوا ددون وناكسن
oo iska masaakiin ah oo hadalka munaafiqiinta ku kadsoomay ayaa warkii qaatay waxa kamid ah dadka ayaga ah saxaabi la dhihi jiray misdax Abu Bakar ayay qaraabay yihiin oo habarirtii ayaa dhashay Aisha waalid ayuu yahay marka adeer uu aadan yahay Soomaa dadkii waxaas dhaxgalay oo sheegay ayuu kamid ahaa ninka asaga ah nin miskiin ayuu ahaa wuxuu ku noolaa oo nafaqeyn jiray oo biilka siin jiray Abu Bakar radiyallahu anhu gurigiisa ayuu joogay markii arintu ay soo baxday oo la ogaaday wixii inay been yihiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka hadlay dadka munaafiqiinta ka sokow dadkii warkii buunbuuniyay ee aadka u wadwaday waxa kamid ahaa Misdax Abu Bakar radiyallahu anhu aad ayuu u xumaaday waana wax laga xumaado qof qaraabadaada oo raximkaaga ah haddana adiga hoostaada ku nool adiga aad biilayso qof ugu aadan waalid ugu aadan yahay haddana inuu xumaantaas ka sheego waa wax laga xumaado bani aadam ayaa la yahay wuxuu ku dhaartay marka inuusan nafaqada siinaynin oo uu ka goynaayo aayado quraana ilaahay subhanahu wa ta'ala soo dejiyay oo leeyahay walaa ya'ti li ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah walyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim yaysan dhaaranin ayuu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka ilaahay fadliga uu siiyay dheeraadka uu siiyay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu gacantooda wax galiyay dadka masaakiinta ah inay wax siiyaan yay dhaaranin inaysan wax siinin waxa laga hadlayaa marka Misdax iyo Abu Bakar radiyallahu anhu ilaahay tala ayuu bixiyay wuxuu yiri ha iska dhaafeeno hana iska musaamaxeeno maxaan u sameeynaynaa ilaahay wuxuu yiri ala tuhibbuna yaghfir Allahu lakum suma doonaysaan ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu idin dambi dhaafo adiga meeqa goor ayaa dambi galaysaa meeqa jeer waqti walba iyo saacad kasta iyo xilli walba dambi ayaa ku jirtaa dambiga asaga soo marabtid in lagu dhaafo ilaahay wuxuu ku xiray dambiga asaga hadaad doonayso in lagu dhaafo adigana adoomada ilaahay khaladka ka galay iska cafi oo iska dhaaf walidalika Abu Bakar radiyallahu anhu islam markii wuu soo celiyay ninkii nafaqadiisana wuu soo celiyay wuuna iska caafiyay wuxuuna yiri bala waan jecelna ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu dambi dhaafo anagana waan jecelna ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu dambi dhaafo ayada Abu Bakar ay ku soo degtay iyo Misdax laakiin anaga way noo taala qofka walaalkaaga ah ee raximkaaga ah ama ku dhow ama ka fog oo aad xididka tihiin oo aad xigaalka tihiin waa inaad cafisaa maxaad u cafinaysaa waxaad rabtaa ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ku cafiyo ilaahayna subhanahu wa ta'ala cafiska uu jecel yahay magaciisa waxa kamid al-afu walidalika ramadaanka Aisha markay weydiisay nabiga kaleey salaatu wasalaam laylatul qadri hadaan ogaado habeenka ay tahay maxaa ugu wanaagsan ee ku duceystaa ayay tiri nabiga wuxuu ku yiri kaleey salaatu wasalaam waxaad ku duceysataa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ilaahay qof dambiga aad u dhaafatahay waana jeceshahay cafiga iyo in la isu saamaxo la isu dhaafo cafi marka adigoo wax yar lagu geystay hadaad ku dhigan tahay oo laga yaabo xataa adiga nafsiyan inaadan murtaax ahayn xigdi iyo xanuun iyo uur ku taala ka buuxdo qofkii hadaa aragtid xataa adoo nashaadsan oo faraxsan hadaa aragtid xataa nashaadkii uu ka tagaaya waa ninkii sidaas ii sameeyay hadii la weydiiyo ninkan maalin buu wax dhahay marka hadaa arka saasaan noqdo maxaa isu cadibaysaa adduunka way isku cadibta aakhira inta la gaarin waxyaabaha khatarta ayaan arkay waxa kamid ah xanuunka noocaas oo kale ta iyo uur ku taaladaas xataa iska daa qofka yani dhibaatada ay u geysanayso maskaxiyan iyo iska daa aakhiradiisa ay xataa dib u geysanaysaa meel baan joognay waxaan dhisaynay guri waqfi ah dad waxooga haysto baan isku keenay waan wacdinay xooga aayadaan u sheegnay xadiis baan u sheegnay waxaan dhahnay wax la baxa dadkii waa qiiroodeen dadkii mid kamid ah ayaa lacag aad u fara badan isu qoray oo wuxuu yiri intaasna ana la baxayo intaasna waalidkayga hooyo aabo ninkii asaga ah meeshii markaan ka tagnay yaan soo wacnay oo waxaan ku nirinay oo lacagtii ayada ahayd waa loo baahan yahay gurigii waqfiga ah inaan dhisnaa rabnaa ninkii marka wuxuu soo ogaaday
wadaadadii waqfiga u taagnayd inuu ku jiray nin ay hadda ka hor isku dhaceen ay isku dhaceen marka wuxuu dhahay ninka hebel ah ma idin ku jiraa ma idin la socdaa haa wuxuu dhahay shilin ma dhiibaya aniga war cajaa'ib ninkii waxaan isku daynay inaan la fariisano oo aan dhahno ninkan waa nugu jiraa laakiin keligiis ma aha hawsha waa wada qabanaynaa maya waxaan ballan ku qaaday kulaha anoo ma ka jooga ninkaas wuxuu ku jira khayr iyo shar inaan galinba marka waxaan ku dhahnay nin kale oo asaga agtiisa uu xushmadeeyo oo weyn ayaan u dirnay waxaan ku niyo ninkaas heerkaas hadda uu gaaray waa aad u sareeyay waa halise u yeer aan heshiisiino ninkii aan u dirnay waxay isku haystaan iyo xasan weydiinay gabar aad qurxoon oo uu aad u jeclaa ayuu reerka ka doontay reerkii baa gabadha siiyey ninkaana maqlay uu ka balogareeyay marka asaga wuxuu leeyahay haba iga balogareeyay haddii xataa asaga uu guursan lahaa gabadhii wax bay aan lahayd kulaha gabadhii ilaa hadda way joogtaa oo dhahay lama guursan marka wuxuu dhahay xaasidnimo haddii xataa asaga uu guursan lahaa qofkan uu guurin lahaa waaba iska cafin lahaye waxa qalbigayga ka bixi waayay kulaha gabadhii way taagan tahay anigana waa lii diiday asagana ma guursanin ninkii marka waan la hadalnay markaan weydiinay wuxuu noo sheegay inay isu yimaadeen oo iscafiyeen waxaan ku nihi marka haddaa cafisay waaba cafisee maxaad haddana ugu dhigan tahay oo hataa aad gaartay heer lacag aad la baxday oo ilaahay dartiisa uga baxday aad u bixin weynaysaa waa miduu hadda sheekha uu sheegayay midii uu ka soo guurinayay ninkii ahaa Mandela kulli ninkii waxaan ku niri waxaas dad kala iska leh annaga waxayna waxa waaye mar haddaad cafisay qalbigaaga waa inuu saliim noqdaa oo aad cafisaa lianna waxaad u cafisay ninkan ilaahay dartiisa weeyaan ilaahay wuxuu ku siinaayana adduunkana uu kugu siini aakhirana uu kugu siini ninkii asaga ilaa dalcagti kama hayno uu diiday fogeedkiina wuu qaatay laakiin wuxuu dhahay lacagtaan meel kale aan ku bixinayaa marka fiiri arrinta waxay gaartayba aakhiradii iyo khayrkii xataa wixii ku jiray uurka qofka dhibaatada loo geystay oo la dulmiyey inay hor istaagto saas oo kale maamo weyn oo taqriiban 45 sano oo kale ninkeeda ay isqabeen ilmo badan ilaahay kala siiyey way isku dhaceen waa dhaxgalnay marka aniga marka la ii diray waa soo waday markii dambe waxay tiri axaadiistan iyo aayadahana u sheeg waxaan ku yidhi iska cafisku waa wanaagsan waxay tiri xadiis soo ma jiro nabiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay waxaa imaan doona qiyaamaha muflis nin la dhaho muflisku waa nin cibaado badan soom badan salaad badan zaka badan sadaqa badan xaj badan waxaas la yimid laakiin kana uu dulmiyey kana uu garaacay kana uu caayay soo ma jiro ninka asaga ah nabiga markuu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ninkan uu dulmiyey sadaqadiisa laga soo qaadi kana la siinay zakada laga soo qaadi xajkiya laga soo marka waxay leedahay ani waxaan rabaa hal sano oo cibaado ah soonkii uu ku jiro salaadii uu ku jirto quraankii uu ku jiro dhikrigii wixii oo dhan oo hal sano kaamil ah in la siiyo kulaha dulmiga dartiis waxaan ku dhahnay wax ilaahay agtiisa yalla ka weyn ma ani kaasaan ku qanacsanahay waxaan dhahay marka haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaad isla hesho wixii wax ka weyn inaad hesho ninkaagana uu kuu badbaado leannahu ninkii weli wuu qabaa marka ayada wuu qabaa ilaa haddana wuu qabaa laakiin ayada wax bay ka sheeganaysaa oo waxay leedahay si fiican mucaamalo fiican ma ila dhaqmo ninkaagana uu kuu badbaado oo aad janno wada gashaan wixii aad hadda sheegayso oo salaado iyo hal sano ah ka badanna ilaahay uu ku siiyo soo kama wanaagsano adiga muddo kadib ayay ku qanacday inay ninkii tiraahdo waa cafiyey waxaas aad sheegaysaan ilaahay hay siiyo soo ma aragti marka qaar waxay gaaraysaa wax yar ayay ka bilaabanaysaa laakiin wixii way weynaanaysaa qofka waxay uga hor istaagaysaa marka aakhiradiisa iyo masaalixdiisa adduunyada inay ka kharibanto oo ay ka halaawdo waana aragteena u maleynayaa qof iska sheekaysanayo oo kule adeerkay 2 sano maanan isla hadlin walaashayda hebel sanad maanan isla hadlin
wixii haddii inta loo dego la fiiriyana wax saas u weyn ma aha adduunkoo dhanaaba iska daciif ah marka annaga waxaan laga rabaa haddaan muslimiin nahay haddaan soomaali nahay khaasatan haddaan doonayno adduunkeenna inuu noo wanaagsanaado sida sheekha uu sheegay aakhiradeenna inay noo wanaagsanaato inaan iscafinno oo aan wixii qalbiga ku jira aan ka saarno oo aan ku dayanno ambiyada ilaahay salawaatullahi wasalaamu calayhi nabiyullahi yuusuf calayhi salaam walaalidiis waxay isku dayeen inay dilaan ceelkii ay ku rideen say u wadeen markii dambe oo ilaahay subxaanahu wa tacaala guusha uu siiyey oo ilaahay mulku misra uu dhiibay markay u yimaadeen ayagoo baahan oo masaakiin ah waa walaaladiisa u galay qisada baad garanaysaa way dheer tahay wuxuu ku yidhi laa tathriiba calaykum alyawm yaghfiru allahu lakum warxamu raaximiin maanta anaa guusha jooga wax dhaleeceen ah dushiina ma ahaanin ilaahay idin dambi dhaafo markii uu ka sheekeynayana wixii isaga iyo walaalihiisa dhex maray wuxuu u aaneeyey dhibaatadii dhacday shaydaanka ma dhihin walaalahayga saas igu sameeyey min bacdi an nazaqa ashaytaanu baynii wa bayna ikhwatii shaydaanka markuu fasaadiyey aniga iyo walaaladayda dhexdeenna ma dhihin walaaladayda ceelka igu tuuray walaaladayda yacni damcayna ay dilaan ilaa akhiri saasaa la rabaa qofka muslimka ah inuu ahaado liannahu hamigiisa iyo waxa yoolkiisa ugu weyn waa janno iyo aakhiro iyo raalla'aanshaha ilaahay subxaanahu wa tacaala marka walaalayaal ilaahay waxaan weydiisanaynaa an yakfira lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك مطواعين إليك وهابين مخبتين اللهم إنا نسألك يا الله أن تسلل سخيمة قلوبنا سيدا سيو كدعي سنجر النبي عليه الصلاة والسلام حمان تقلبي أن كجرته إلهي سبحانه وتعالى إنه أدونك با إنت أنا آخر لقارين ونقصاره سيان أنقرنه ذاتك إلهي وشيغي ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله